السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا إن شاء الله تعالى حوي lesson 1 عشركي كوباد part 9 غيبتي سقالات وحنا كهالنا وحوي real life English Treza يا هلا يسوي هذا هاي I'm so excited أد بانو فرح سنة هاي about this job شغلة مركا I know when أوجا هاي it is the right job for me إن إيتها شغلة صح هاي دانية مركا I'm so excited about this job I know it's the right job for me وحصل على مركا ومحي وتريزا I'm so excited أدور فرح سنة about this job شغلة I know when أوجا هاي it is the right job for me وحي أنا إيتها شغلة صح هاي سيلفيا waxay tiri before you wanted to go into healthcare يعني before كهر you wanted waxaad doonaysay to go to healthcare inaa markaa يعني aad gasho qaybta caafimaadka healthcare waa maxay health waa caafimaadkii carena waa يعني daryeel markaa waxaad doonaysay inaad gasho qaybta caafimaadka is this really better ma tan baa ka wanaagsan is this really better xaqiiqdii ma tan baa ka wanaagsan waxay tiri markaa Teresa I wanted when doonayay to go into healthcare at first inaan aado ama aan galo yani waxa la yiraahdo healthcare at first markay ugu horeysay but laakiin I really liked waxaan jeclaaday xaqiiqdii my business classes in college yani fasaladii yani ganacsiga ee college kana markaa ayaan jeclaaday the business world yani dunida ganacsigu seems waxay u muuqataa exciting mid xiiso leh markaa mid aad u xiiso badan ayay u muuqataa bay tiri markaa Teresa waxay leedahay I wanted to go into healthcare at first markii ugu horeysay waxaan doonayaan yani aan galo yani caafimaadka but laakiin I really liked my business classes in college I really liked anigu really xaqiiqdii liked waxaan jeclaystay ama ka helayba my business classes fasaladii markaa yani ganacsiga in college aan ka dhiganayay the business world dunida maanta yani waxa weeye dunida ganacsiga seems ayaa waxay u muuqataa exciting mid xiiso leh markaa okay Sylvia waxay leedahay when did you get your first job in human resource When did you get your first job in human resource? waxay tiri goormaad heshay shaqadii koowaad ee human resource-ka markaa human resource-ka hore aan ugu soo sheegay waa shaqaalaha markaa yani marka laga hadlayo ayaa la yiraahdaa shaqaalaha human oo bini'aadanka resource-na hore aan ugu sheegay markaa when did you get your first job goormaad heshay shaqadii koowaad in human resource markaa ee human resource-ka markaa Teresa waxay tiri as a student arday ahaan anigoo ah arday I got waxaan helay a part-time job shaqo markaa part-time ah part-time waxaa la yiraahdaa qofka inuu shaqeeyo yani adduunka waxa ku waafaqsan yahay 8 saacadood inuu shaqeeyo part-time waxa weeye waa 40 saac yani waxa weeye waa 4 saacadood 8 marka laba loo qaybiyo waa 4 ama waxa oran karnaa inuu qofku gelin shaqeeyo gelin dambe oo san markaa gelin kale uu shaqeyn markaa hal gelin qofku inuu shaqeeyo oo oran karnaa iyada lafteeda sidoo kale waxaan oran karnaa yani qofka inuu yani uu shaqeeyo maalmaha yani sida weekendiga sida maarta yani maalmaha yani khamiista iyo jimcaha waxaas oo dhan waa oran karnaa laakiin full time job iyada waxa weeye waa shaqo loogu talagalay 8 saacadood marka haddaad maqasho part time waanaad ogaataa waa yani shaqada halfkeed shaqada caalamka isku waafaqsan waxa weeye 8 saacadood qofku inuu shaqeeyo Teresa waxay tiri as a student anigoo ah arday I got ayaan waxaan helay a part-time job shaqo markaa part-time waxaan ka helay markaa in the college human resource markaa department in the college baan ka helay iskuulka yani college kan ka helay human resource department aan ka helay markaa waaxda shaqaalaha ayaan ka helay and it was really interesting waxaan ahayd mid aad u xiiso badan markaa it was really interesting waxay ahayd xaqiiqdii mid xiiso badan markaa marka su'aasha la weydiiyay waxay ahayd when did you get your first job in human resource
goormaad heshay shaqadaadii kugu horeysay human resource-ka. As a student I got a part-time job in the college human resource department. waxaasaan ka helay tiri anigoo arday ah. It was really interesting. waxay ahayd mid aad u xiiso badan markaa. Sylvia waxay tiri you're bilingual. You are bilingual. Bilingual waxa la yidhahdaa qofka ku hadla laba luqadood. يعني qofka markuu hal luqad yaqaano waxa weeye waa luqadii uu dhasho yaqaan. laakiin bilingual marka laga hadlayo waa laba luqad markaa. waxay tiri you're bilingual. way soo gaabsay you are bay soo gaabsay. waxay tiri you're bilingual. waxaa tahay qof markaa ku hadla laba luqadood. Does that help at your job? Does that help? taas markaa caawisay at your job shaqadaada markaa. Teresa waxay tiri sure it's very useful aad bay yani waxtar u tahay to speak inaad ku hadasho two languages laba luqadood markaa. I think waxaan u malaynayaa that's one reason taas waa hal sabab why I got sababta aan u helay my new job shaqadeeda cusub at a Baker Resort Hotel. And English is the second language. English waa luqadda labaad for many of the hotel workers ee shaqaalaha yani ka shaqeeya hotelka intooda badan. I can help them waan caawin karaa. I can help them waa maxay waan caawin karaa markaa. aan ku soo celiyo waxay tiri you're bilingual. Does that help at your job? yani waxaa tahay qof ku hadla laba luqadood taa ma kaa caawisa shaqadaada. Sure it is very useful aad bay macnaha u wanaagsan tahay. useful waxa weeye wax ku ool يعني وقت يعني fiican weeye. useful it's very useful aad bay يعني u tahay waxtar. to speak useful to speak aad bay يعني faa'iido u leedahay to speak two languages. marka useful way qofkan yiraahdo iyo useless marka yiraahdo laba kala tahay. qofkan waa useful waa qof waxtar leh weeye. useless na waa qof macna la'aan oo macna darra weeye oo wax matara ah. marka it is very useful aad bay marka waxtar u leedahay ama u faa'iido badan tahay to speak na ku hadasho two languages laba luqadood. I think waxaan u malaynayaa that's one reason taas waa hal sabab why sababta I got aan u helay my new job at a Baker Resort Hotel aan u helay markaa. English is the second language. English waa luqadda labaad for many of the hotel workers ay ku hadlaan shaqaalaha intooda badan ee ka shaqeeya hotelka. I can help them waan caawin karaa markaa. halmaan kusoo celino casharkeena lesson 1 casharkii koowaad part 9. Teresa I'm so excited about this job. aad baan ugu faraxsanahay shaqadan. I know waan ogahay it is the right job for me inay ii tahay shaqadeedii yani ugu saxsanayd aniga ahaan inay tahay shaqadii saxda ahayd markaa. Sylvia waxay tiri before you went to go into health care ka hor waxaad doonaysay inaad gasho health care daryeelka caafimaadka. Is this really better? yani tani yaa ka wanaagsan markaa. good waa wanaag better waa ka wanaagsan wana ogaataa labada kalmood. Is this really better ma tan baa ka wanaagsan xaqiiqdii. waxay tiri I wanted to go into health care at first. I wanted waan doonayay to go into health care at first. markii ugu horeysay inaan galo qaybta markaa caafimaadka iyo sida dadka loo daryeelay inaan barto caafimaadkaas. but I really liked my business classes. laakiin xaqiiqdii waxaan jeclaaday yani fasalada in college ee ganacsiga markaa. waxay tiri but laakiin I really liked xaqiiqdii waxaan jeclaaday my business classes fasalada ganacsiga in college markaa. fasaladeedii ganacsiga ee college-ka ayaan jeclaaday. the business world yani waxa weeye ganacsiga adduunkuna seems wuxuu muuqdaa exciting mid xiiso badan markaa. marka seems u muuqasho the business world seems exciting u muuqdaa markaa mid xiiso leh markaa. Sylvia waxay tiri when did you get your first job in human resource? goormaad heshay shaqadaadii koowaad ee markaa human resource markaa. As a student I got a part-time job in the college human resource department. As a student anigoo ah arday I got waxaan helay a part-time job yani shaqo markaa part-time ah oo in the college gudihiisa ah
waliba qaasatan human resource department waaxda markaa shaqaalaha markaa. It was really interesting. xaqiiqda waxay ahayd mid aad u xiiso badan. Sylvia waxay tiri you're bilingual. waxaa tahay qof markaa laba luqad ku hadla. Bilingual lagu dhawaaqaya. Bilingual waxaa tahay qof markaa laba luqad ku hadla. Does that help at your job markaa? Does that help at your job? marka bilingual waxa weeye waa qof laba luqadood ugu hadla fluent waa maxay? Si fasiixa oo dhammaystiran oo qof kastana fahmi karo. Bilingual waa qof laba luqadood ku hadla markaa. You're bilingual. You are bilingual. waxaa tahay qof laba luqadood ku hadla. Does that help? taas markaa caawisay at your job shaqadaada. Sure bay tiri ha it is very useful. aad bay yani faa'iido weyn u leedahay. useful marka waan idin sheegay waxaan ku sheegay wax ku ool waxtarana wax faa'iido la wey. It's very useful. aad bay yani u leedahay faa'iido to speak inaad ku hadasho two languages laba luqadood. I think waxaan u malaynayaa ama ay la tahaba that's one reason taas inay tahay mid ka mid ah sababaha. reason marka waa sabab. That's one reason taas waa mid ka mid ah sababaha why haddana sababta I got aanu helay a new job shaqadeeda cusub aan ka helay at the Baker Resort Hotel. English is the second language. English waa luqadda labaad for many of the hotel workers ee shaqaalaha yani badankood yani ay ku hadlaan. waa luqadda labaad marka many waa badan of the hotel workers shaqaalaha intooda badan ardayda marka shaqaalaha badankooda waxay u tahay Englishku luqadda labaad. I can help them waan caawin karaa marka cashkan isagana wuxuu ku saabsanaa waxa weeye qaybta maxaa la yiraahdaa ay sheeg wuxuu ka hadlayay maanta sida markaa shaqadii koowaad ay ku heshay Teresa. waxaana weydiinaysay Sylvia kale soo one partner waxaa noo socdaa wada sheekaysigii qaybtii yani lagu wareysanayay sida ku heshay shaqadii koowaad waxa la yiraahdo Teresa marka iyo maaragtay yani markii hore waxay doonaysay iyo hadda waxay tahay marka Sylvia hawsha wada waxay leedahay waa boogani real life English ama yani wada sheekaysigani ku saabsan real life English lesson 1 ashkii koowaad part time. Sylvia waxay tiri how did you go from part time to full time at your first job? How did you go from sidoo uga timid part time yani part time aad u noqotay to full time at your first job shaqadii koowaad marka yani sida caadiga waa soo sharaxay. part time waxaan ugu sheegay saacadaha caalamka isku waafaqsan qofka inuu shaqeeyo waxa weeye waa yani 8 saacadood isbuuciina 40 saacadood macnaheedu waxay ka dhigan tahay 5 ugu dhuftay waa 5 maalmood oo min 8 40 saacadood baa isku waafaqsan yahay full time saas loo yaqaanaa. full time job loo yaqaanaa marka inta badan caalamka. marka part time waxa weeye waa shaqadaas oo part ah qayb ah marka salaan full meesha ka tahay 8 saacadood bay full ahayd. part time waa maxay? waa half cut waa 4 saac iyo wixii lagu heshiiyay marka ama shift hal yiraahdo oo gelin hal yiraahdo ama hal yiraahdo maxay weekend khamiisaha jimcaha hal yiraahdo taas waxa wixii lagu heshiiyay marka waay. laakiin sida caadiga part time waxa weeye waa shaqo full time marka yiraahdo waa 8 saacadood part time na waa 4 saacadood marka waxay leedahay Sylvia how did you go from sida uga timid part time to full time at your first job marka sida shaqadii koowaad part time ka ahayd aad uga timid oo u noqotay full time job يعني full time يعني at your first job shaqadii koowaad marka. Teresa hadlaysay ayaa waxay tiri as a college student anigoo arday marka college ah I could only work waxaan shaqayn karayay part time marka I could only waxaan karayay work shaqada part time ka marka could waa kaana ka imaatay. I could waxaan karayay only kaliya work inaan shaqeeyo part time يعني part time kaliya. I needed waxaan u baahnaa time to study waqti aan wax barto marka kaynantani ardayd bay ahayd oo yani wax ka barata college-ka Mareykanka marka la joogo college waxaa loo garanayaa wax ka sare dugsi sare jaamacadana wax yar ka dhiman marka jaamacadda hal sano ama 2 sano uga dhiman laakiin inta kale dugsi sare ka sare qofkan college oo inta markuu yiraahdo sometimes na college waxay ku magacaabaan jaamacadda college waxay yiraahdaan jaamacadda marka
marka waxay tiri as a college student anigoo arday college I could only work waxaan shaqayn kaliya part time marka I needed waxaan u baahnaa time waqti to study wax ku barto I worked waxaan shaqayn jiray 22 hours halkan 40 kala hayn eeg 40 laba u qaybi waa 20 saacadood inanta waxay shaqayn jirtay 22 saacadood oo ay ku darsanayeen I worked waxaan shaqayn jiray 22 hours 22 saacadood a week toddobaadkii marka maalin baa laga yaabaa inay saacad ka raacdo ama daqiiqado ka raacaan saas 20 saacadood isbuuci u ahayd halkaana waan ka niray full time ku waa 40 saacadood isbuuci marka I worked waxaan shaqayn jiray 22 hours a week 22 saacadood isbuuci but laakiin when I graduated markaan ka qalinjabiyay from college I need waxaan u baahnaa a full time job shaqo markaa full time marka full time job waa maxay shaqo markaa full time marka full time job no waan sheegnay waa 8 saacadood qofku inuu shaqeeyo maalintii marka there was marka waxaa jiray a full time job open oo ka furmaysay in the department waaxda marka waaxda shaqaalaha ayaa waxaa ka furmaysay yani shaqo full time marka waagi hore waxaan ku shaqaynayay part time marka waaxda shaqaalaha ama yani waxaa jirtay waaxda shaqaalaha oo ay ka furmaysay maxay yani waxa la yiraahdo full time job marka Mrs Robinson yani Marwa Robinsonna was waxay ahayd the manager maamulaha and she recommended me when ula talisay marka and she recommended me when ula talisay recommend wala talin marka she knew waxay ogeyd my work shaqadeeda she liked me way iga heshay she helped me a lot wax badan bay caawisay marka she helped me waxay caawisay a lot in badan marka aan ku celiyo as a college student anigoo arday yani as a college student yani ka arday ahaan anigoo ardayga marka yani college-ka I could only waxaan marka yani awoodi karay work inaan shaqeeyo part time xilliga marka part time ka I needed waxaan u baahnaa time to study waqti aan wax barto I worked waxaan shaqayn jiray 22 hours 22 saacadood ee week toddobaadkii but laakiin when I graduated markaan ka qalinjabiyay graduate when I graduated markaan ka qalinjabiyay from college I needed waxaan u baahnaa a full time job marka shaqa full time there was marka waxaa jiray markaas markaan u baahanahay waxaa jiray a full time job opening oo ka furmaysay in the department waaxda marka waaxda gudaheeda oo shaqada shaqaalaha waaxda ayay ka furmaysay marka Mrs Robinson was waxay ahayd the manager Mrs MRS tartan waa Mrs waa qof la qabo magacaasna ninkaas iska leh Mrs Robinson was wuxuu ahaa the manager maamulaha and she recommended me when igula talisay marka iyada ay la talisay oo igula talisay shaqadan she knew waxay garanaysay ogeyd my work shaqadeeda she liked me way iga heshay oo way jeclayd she helped me waxay caawisay a lot in badan marka Sylvia hadasho waxay tiri how sideebaa did she help you ay ku caawis Teresa waxay tiri she helped me with problems at work she helped me waxay iga caawisay with problems shaqooyin yani dhibaatooyinka at work shaqada marka wixii problem ka imaan kara shaqada ay iga caawin jirtay marka she gave me waxay marka yani isiisay good advice tala fiican marka she helped me get ready waxay iga caawisay inaan u diyaar garoobo for the job interview wareysiga shaqada marka she was really a mentor to me xaqiiqdii aniga waxay ii ahayd mentor marka waan sharaxi doonaa mentor aan ku soo celino su'aashii iyo jawaabteedii how did she help you say ku caawis she helped me with problems at work waxay iga caawisay problemska dhibaatooyinka ka jira marka at work shaqada marka she gave me waxay siisay good advice talo fiican marka advice waa waano ama talo ay siisay marka
she helped me waxay iga caawisay get ready inaan u diyaar garoobo for the job interview waraysiga markaa yacni shaqada markaa get ready waa u diyaar garow marka u diyaar garow get ready for the job interview waa maxay waa waraysiga shaqada markaa she was really a mentor to me xaqiiqada waxay ahayd mentor markaa qof markaa mentor ah qof ihaya mentor what's a mentor waa maxay mentor baa layidhi markaa waxay tiri that's like a teacher at work kaas wuxuu la mid yahay macalinka shaqada waa qof yani mentor waxaa la yidhahdaa inta badan qof yani sida caadiga markaan soomaaliga caadiga noo sharxo waxa weeye mentor waa qof shaqadan hadda adiga aad qabanayso hore usoo qabtay yaqaana khasaaraheeda faa'iidadeeda wax yani faa'iidana ka keena marka qofkaas waxaa loo garanayaa mentor marka waxay tiri mentor what's a mentor waa maxay mentor marka that's like a teacher at work waxay tiri that's like kaas wuxuu la mid yahay a teacher macalinka at work shaqada marka macalinkii shaqada way tiri a mentor qofka mentorka helps you wuxuu kaa caawinayaa succeed inaad ku guulaysato at work shaqada marka anyway si kastay ahaataba I got the full-time job waan helay shaqadii markaa full-time-ka ahaa and after a few years kadib sanado yar kabacdi I became waxaan noqday an assistant manager yani kalkaaliyaha maamulaha marka assistant manager ayaan noqday marka aan ku celina markaa that's like a teacher at work what's a mentor or my mentor that's like wuxuu la mid yahay a teacher macalinka at work shaqada a mentor qofka markaa mentorka helps you wuxuu kaa caawinayaa succeed inaad ku guulaysato at work shaqada markaa anyway si kastay ahaataba I got the full-time job waan helay shaqadii markaa full-time-ka ahayd and after a few years sanado yar kadibna I became waxaan noqday an assistant manager I'm so excited about this job. I know it's the right job for me. Before, you wanted to go into healthcare. Is this really better? I wanted to go into healthcare at first, but I really liked my business classes in college. The business world seems exciting. When did you get your first job in human resources? As a student, I got a part-time job in the college Human Resources Department. It was really interesting. You're bilingual. Does that help at your job? Sure. It's very useful to speak 2 languages. I think that's one reason why I got my new job at the Baker Resort Hotel. English is a second language for many of the hotel workers. I can help them. How did you go from part-time to full-time at your first job? As a college student, I could only work part-time. I needed time to study. I worked 22 hours a week, but when I graduated from college, I needed a full-time job. There was a full-time job opening in the department. Mrs. Robinson was the manager, and she recommended me. She knew my work, and she liked me. She helped me a lot. How did she help you? She helped me with problems at work. She gave me good advice. She helped me get ready for the job interview. She was really a mentor to me. Mentor? What is a mentor? That's like a teacher at work. A mentor helps you succeed at work. Anyway, I got the full-time job. And after a few years, I became an assistant manager.